أسمع باسبور كله مرضنا ضدك كله تور عليه هنا وحلوانات النوع أحمر وباسبورات كله وطنع وحاول هوطان لكن هو قاعد معلم إن شاء الله أنا يقف ملاح نوع أنا كي يقول إنه باسبور كله وطن أي ما ضمت إن شاء الله وقرصور عمر عبد القادر عرتن oo dhiirigelintii ugu weyneyd abid garsoore caalami ah oo helo isagoona markan dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhiirinaya in ay qaataan isla markaana iimaansadaan baasaboorkooda hooyo isagoona sheegay in aanay wax faa'iido lahayn baasaboor shisheeye Umar Artan fariintiisa waxaa laga dheehan karaa sida uu u diiday dalabaad fara badan oo heer caalami ah kadib markii garsoorahan Soomaaliyeed ee FIFA u diiwaan gashan waa Umar Cabduqaadir Cartane uu si toos ah u sheegay in aanay ku degeen ama ku xasiloon baasaboor aanay ahayn kan hooyo ama kan dalka hooyo ee Soomaaliya Umar Artan ayaa adeega iyo ku dhignaanta dalkiisa hooyo ee Soomaaliya waxa uu ku muteestay in kulan kamid ah kulamada ugu adag ee Yurub waa Super Cup-ka oo la dhex dhigo kooxaha ku guuleysta horyaalka qaaradda Yurub UEFA Champions League iyo horyaalka European League liiraahdo ee heerka labaad ah in ay isku arki doonaan 12 August sanadkan 2026 naadiga Champions League ku guuleystay PSG iyo Aston Villa oo koobka UEFA Europe League ku guuleysatay Umar Artan uu garsooro kulankaasi taasi waxay keentay in saacadii u dambeeyay Umar uu noqday shakhsiga sida weyn caalamka aadka loo hadalhayo iyadoona arintaas ay ku sii darsantay kadib markii munaasabad uu ka qayb galay ninkan kartida leh iimaansadayna baasaboorka dalkiisa hooyo kuna adag in uu noqdo Soomaaligii ugu horeeyay ee horumar inta la gaaro isagoo heli kara dalal kala duwan ayaa waxa uu bilaabay in uu dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed sida uu horeyba u sameeyay garsoore Umar Cabduqaadir Cartan waxa uu dadka heesta baasaboorada shisheeye ugu baaqay in ay meel iska dhigaan maadaama waxa kaliya lagu qaadan karo uu yahay in ay baasaboorkaas marka hore ay noqdaan qaxooti ama abayihiin taas oo keenaysa in baasaboorkooda hooyo uu kaga wanaagsan yahay marka la barbar dhigo baasaboorada kale ee sida aan wanaagsaneyn arintaas ay ugu qaadan karaan ila kala duwan waxay tilmaameen in Umar Cabduqaadir Cartan uu durbaba bilaabay in uu dhiirigeliyo rag fara badan iyo dumar fara badan oo Soomaaliya kuwaas oo qaarkood muddo dheer la daaladhacayay arrimaha ku aadan sida ay u heli karaan baasaboorada shisheeye laakiin Umar ayaa waxa uu noqday tusaale mudan in la gaari karo horumar wanaagsan isla markaana indhaha caalamka uu u soo jeedin karo dalkiisa hooyo ee Soomaaliya Umar ayaa marka uu Yurub aadi doono waxa loogu dhufi doonaa dalku galka baasaboorka Soomaaliya taas oo keenaysa in wadamada fara badan ee Yurub intooda badan hore ugu dhiiraday baasaboorka Soomaaliya in ay markan sii xoojiyaan taageerada iyo garab istaaga ay u muujinayaan garsoore Cartan ayaa in muddo wax waday sidii uu kaalin weyn uga qaadan lahaa horumarka xirfadiisa isboorti iyo sidoo kale xirfadiisa guud ee shakhsiyadda ah iyadoona ugu dambeyn arintaas gaarsiisay in sanadkii hore uu ku guuleystay garsoorihii Afrika ugu fiicnaa markanse waxaa loo badinayaa in uu noqon karo garsooraha sanadkan ugu fiican maadaama uu dhexdhexaadin doono kulanka Europe Super Cup-ka ee la dheeli doono bisha Agoosto horaanteeda waa 12 bishaasi iyadoona ugu dambeyn xiriirka UEFA-na uu arinta u sii raaciyay in Umar uu yahay shakhsi karti badan oo iminka loo taagan yahay guud ahaan caalamka in la sii garab istaago wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo waad ku maasantahay daawashadii ku xiraanta janaalkayga fadlan haddii janaalku ku cusub yahay subscribe saar oo riixga mararka si aad u hesho wararka iyo warbixinada degdega ah ee dalka iyo dibadda ka dhacaya mahadsanid